أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم وكيلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحنك سلام يا دمان أمدا كحرا barnaamijyadayda waxaan rabaa in aan ka hadlo maantayto waxaan rabaa barnaamijkaygu uu ku saabsan yahay anigoo MMS ah wuxuu barnaamijkaygu maanta ku saabsan yahay faraanka haya maxay tahay faraanka haya yaa lagu dhahaa faraanka haya yaa dhaha faraanka haya yaa ku faana faraanka haya yaa ka ooya waa markaan runta isu sheegno faraanka haya nimanka ku dhaha naagaha nimanka ku dhaha dumarka nimanka ku dhaha gabdhaha faraanka haya faraanka haya where are you marka faraanka haya haye kelmadda faraanka haya maxaa keenay in fara la iska qabto maxaa ninka fara looga qaban waayay oo gabadha fara looga haya seebuu safara uga haya faraha gabdhuhu hayaanse inay sheegaan maxay ku diideen faraha raggu hayese in la sheego maxaa lagu diiday honno hadal maaha hembererese arag maaha soo waxaa bideen inay dumarku daciif noqdeen baad aragteen ama ay ahaan jireen soo waxaa idiin sheegaya faraanka haya ninbaa gabar shukaansanaya wax kastay isweydaarsan karaan wax kasta asagu waa ceebka saliin waa sidoo asagu is yiri ma aha ceebka saliin laakiin waa sidoo asagu isugu sheekeeyay inuu yahay asagu ceebka saliin gabadhuna inay tahay keeriyaal oo wasakhda lagu raro inay tahay no faraanka haya kelmadda ah gabdhaha u joojiyo ragga annaga fara ka hayna wax muuqdana annaga ka hayna soo waxa idin sheegaya gabdhaha Soomaaliyeed faraanka haya yaan waqti lagaaga lumin faraanka haya waqti yaan lagaaga lumin ninka kugu abiyuusa ama kugu dulma inuu ku dhaho faraanka haya oo been ah si kastaba mataqaanaayeeto ama telefoonkaaga access ha u yeesho ama adigu aad kalsooni aad ku kalsoonayd ugu dir masawir aad leedahay wax kasta adduunka jira wax aan adduunka la samayn malahan nin ilmahaas ha laga soo qabto ma hayno laakiin wax kasta adduunka jira ilaa xilligii asxaabaha way jireen karunta la isu sheego way balwad hadaad leedahay faraanka haya ma shaqaynayso hadaad la seexatay faraanka haya ma shaqaynayso masawirkaaga oo qaawan haduu haayo faraanka haya ma shaqaynayso faraha wuxuu kaaga hayn karaa ama uu ku leeyahay faraanka haya faraha uu ka hayo asagu xageebu uga maqnaa meesha faraha lagaaga qabtay asagu xageebu ka jiray gabdho badan oo waxaa jira kalsoonidiina inaan kor soo qaadaan rabaa anigoo MMS honno hadal maaha hembererese arag maaha bar gabdhaha Afrika jooga waaba garanay oo waxbay xeerinayaan oo wax u heelinayo dawladda ma haystaan oo wax kale ma haystaan laakiin gabdhaha ku nool qurbaha oo ladies ay diamondka ka yihiin oo maalin walbaba ninu torture ugu haysanayo faraanka haya naaya hadaadan waxaasan ka haya waxaas isiinin waxaasan kugu samaynaya uu gabadhi stress ugu rido oo gabadhi walwal ugu rido oo ayadoon rabin uu maxsi kaga helo oo ayadoon rabin uu mataqaanaa ku guursado oo ayadoon rabin uu suu doona u yeelo ugu ciyaaro oo ayadoon rabin uu lacagteeda ku qaato oo ayadoon rabinin uu suu walba ugu abiyiso gabdhaha ku nool North America laminow aniga ninka ku dhaha faraanka haya ama aad oga shakidid in uu inta masawir uu ka hayay ama wuxuu ka hayay uu saaxiibkiisa u diray ama uu siiyay aniga ii soo sheeg waa hadaad ku nooshahay North America waliba Mareykan hadaad ku nooshahay women baan nahay xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed waanu u kacaynaa me too ma maqasheen me too hal war bay ka dhacday me too inta gabdhii mataqaana Mareykan dhexdiisa gabdhii cadaabay ka dhacday me too maxaa dhacay me too anagu itaabtay me too anagu itaabtay me too anagu ibaad me too anagu yahaweystay me too wadankaani ka dhacda soo waxaan rabnaa inay gabdhaheenu dhahaan isku kalsoonaadaan inay dhahaan me too
anigana saasa laygu sameeyey me too anigana saana laygu sameeyey me too anigana saana laygu sameeyey because inaga dhan victim baynu nahay raggaana victim naga dhigay honno hadal maaha hemberirisi arag maaha so waxaan idiin sheegaya ladies gabdhaha curdanka ah ee beautifulka ah haddaad weyn tahay feeling baad leedahay haddaad yar tahayna feeling baad leedahay haddii khalad dhacana malaa'ig ma tihid bashar baa tahay qof kasta oo basharana wuu khaldamaa dembigaad allah ka gashana allah subxaana wa tacaala baa kugu leh laakiin nin yar oo madow oo daba jururacaa leh no inuu kugu haysanayo toojar no ma kugu haysanayo toojar annagaa ka shaqaynayna annagaa ku garab istaagayna annagaa kuu hiilinayna annagaa moralkaa kor u qaadayna gabar maskiin ah oon waxba samaynin baa niman toojarka waxay ugu haystaan inay say doonaan ka yeelaan taas waa gabdhaha la dhaho faraankaa haya maxaa soo haray gabdhaha nimanka ka keena dibadaha gabdhaha nimanka ka keena dibadaha ee sidii ay ayagu yihiin yaa intuu magafo ka baxsado ayadu intay raaxo ku soo geliso yaa ay waddankan keento oo hadhowna uu ku rido stresska iyo walwalka iyo fakarka ama uu intuu ilmo kaga dhalo uu kaga dhaqaaqo ama intuu dalka kusoo galo wax yar joogo uu kaga tago ama intuu waddanka yimaado markuu 2 beri la bisto gaari iiga ba ilaaha idinku dhaarshay ma hooyadiisu u imaaday gabar buu inta soo guursato oo intaas intaqaanaa waqti gelisay oo intaa process u martay oo wax walba u samaysay bay wadankii keenaysaa opportunity-ga lahaa markaas wuxuu oranayaa gaarigaasaan rabaa taxi iigad markaasay gaari u gadaysaa oo kan kama helo kaasa hebel iyo hebel ba wataan nimankaas wataan ka iigad anuu kiriid mali aan ku soo qaata ilaane kiibay haddana soo qaadaysaa taxigu lacag ma lahan taraag iigad haye taraagii bay u gadaysaa ma ayadaa dhashay markay baabuurta u gadanayso ma adaa dhalay ha u gadanina khalad kugu dhacaa annagaba waana la siray shalayto laakiin baabuuro omaan gadanina intuu afrika jooguba aniga isoo liqay kow laakiin waxaan idiin sheegaya xoolaha naagu ma gubtaan soo ma ogid ruwaag wuxuu yidhi xoolaha naaga haddaan xoolaha ka aqaano iskuma taabteen buu yidhi soo ma ogidin ninka xoolaha aan ku leeyahay ilaa intaan god ka galahaya saasaan u hadal haynaya sow naag baan ahay soo ma hanno hadal ma ina faar xaggaas baa gacan galay sow ilaa iyo habeenkuu qabri ka galo hadduu xataa dhinto anigu aan noolay weli waa sheegaya sow adduunka isagoo saaran buu isiin waayey intaan adduunka ku noolahay xataa percentage iga dhaafo isii hadduu dhaho waa ogolahay laakiin xoolahaygiioo duuduuban iyo asagiioo duuduuban iyo asagiioo bahalkaysan iyo anoo baalaha layga rifay iyo anoo jacaylkiiyo kala garan waayey foorjadii so maalin walba waa sheegaa waxaan u sheegaa mataqaanaa because xoolo naageed weeye xoolo naageed ninkii isku cunow habeen walba way sheegaysaa naagta iskale xoolahaas gabdhaha soomaaliyeed waxaan sheegaya gaarigaasaan rabaa taxigu lacag ma lahan huber baan rabaa huberku lacag ma leh taraag baan fuulaya taraagii bay u gadaysaa markuu xoogaa ismahadiyo oo jeebkiisa xoogaa buuxsamo oo uu rag la sheekaysto nin ismoodaa rag buu inta taraagyadii la fuulo ama ayagu gatay yaa oo weliba muxuu dhahayaa mataqaanaa waa loo caqli celinaya rag baa u caqli celinaya dumarku waxba iskama yeelno annagaa iscayna innagaa isku maqan innagaa isku mashquulsan innagaa laisu kanjeediyey kow laakiin raggu way tashadaan waryaa naagtu gaariga hadday kuu gadayso kaash keendhe kaash daba la qabsada ma leh gaariga kaashka aad ku gaday daba la qabsada ma leh kow gaarigii bahalkii haye gaarigii baa kaash loogu gadaya hadhowbu gaarigii intuu qaadoo gado oo lacagtiina jeeb ku shubta wuxuu oranayaa saasaa gaarigii ku dhacday gabadhiina ayadoo taagan buu mid kala shukaansanaya markaasi suuqa waxay ka maqlaysaa ama ku arkaysaa ama loo soo sheegaya asagoo naag wata markaas wuxuu leeyahy naqayadaadaa badatay 2 ama 3 ama 4 ama hal bay u haysaa ama waxba uma dhalinoo weli asagii bay dhowranaysaa markaasuu dhulka ku jiidaya markaas waxaad arkaysaa gabadhii shalayto beautifulkaedo korkeeda saa dhalaalka uga dhacayay oo saa u ooyeysa baad arkaysaa nimanka saas maalin walbaba gabar u gelaya naagaha inta u dhoofa nimanka waxaa idiin sheegayaa marka sirtooda nimanka africa ama yurub ama meelahaas jiroo maraykanka usoo socdaan idiin sheeg horta meesha ugu badan oo naago raggu soo aado oo ay jecel yihiin hadduu xataa yurub joogo maraykan buu rimanya laakiin qof maraykan jooga inta badan yurub ma rimana kow nimanka laga keenayo meelahaas oo maraykanka ama yurubta gabdhuhu ay keenayaan ama australia geynayaan waxaa idiin sheegaya time buu hayaa firaaqo weeye time muxuu hayaa taxi message
time muxuu hayaa sawir inuu iska qaado time muxuu hayaa jacayl inuu kuu soo qoro time muxuu hayaa inuu you know time buu wuxuu u hayaa inuu jacayl been ah inuu kuu jiro adiguna cirbaha ku googo'ay xataa kuwa cagaha dhaqa uma tagi kartid waa daalan tahay ama ilmaad haysto single mother baad ahayd amba waxaad ahayd bahalkii ama gabar yaroo shaqaysataa tahay ama iskuul bay dhigataa waxay doontaa ahaato way daalan tahay markaasuu inta ama hindiya fariisto oo xoogaa jaamacadiya ka dhigto ama Pakistan iyo meelahaas iyo Malaysia iyo Kenya iyo soo meesha doona ha joogo time buu hayaa time buu wuxuu u hayaa inuu been kaa gado been inuu kaa gado muxuu kaa gadayaa inuu maantaas wax kuu soo qoro inuu Facebook wax kugu soo qoro inuu Fiberka wax kugu soo diro inuu WhatsAppka wax kugu soo diro inuu email isoo ka sawiro inta time badan buu hayaa adigu time aadan haynin markaas waxaad leedahay ninkaan jecela lama aragto sawirqadaha igu soo diray I was remember ninkii Mareykanka aan keenay oo Kenya jooga on saabilka iyo hadiyadaha iyo kaamirooyinka iyo adduunka aan saa ugu diro I was remember intuu masawiradaydii Ethiopia waa aan isugu tagnay oo aan ku soo dalxiisnay masawiradii aan ku soo qaatay intuu saas meel u safay intuu saa meel qurux badan u safay oo kaamiradan u diray qaatay buu ku duubay heesna intuu daaray buu kaamiradi ku duuba cajaladaas waa raadinayaa inaan haayaan u malaynayaa cajaladaas dhan masawirra la dhahaa cajaladaas dhan xataa asagu isma soo xataa isku soo duubinin wuxuu la kor istaagay masawirro adigu time ma u haysaa intaad masawirro meel daadisid oo record daartid inaad hees jacayl ku kordubtid cajalad ordaysaa maanta dambe qoliyo soo baxay alaab igu soo dhiibay baa dhag baa ku jirta cajaladii baa waxaan gelinay tii waaweyneyd bay ahayd waxaan geliyey VCR kan geliyey waa daawada cajalada dhan waa sawiro markaas Allah jecela maxaa keenay time buu hayaa anigana labada cagood hilib safan bay leeyihiin xataa kuwa cagaha dhaqo indha yartaa ma tagi karo jam ilma ii taagan dugsi baa ii taagan iskuul baa ii taagan ciyaalkii baa ii ordayay dukaankii baa mortgage baa igu taagan kana igu taagan naftaydaba ma garto asaguna xoog buu meel la fadhiyaa markaas masawiro video ka soo duuba waxaasaa la idinku sheekeeyaa marka anaa soo jabay inaad jabtaan baan idiin diidaya hanno hadal maaha hembererese arag maaha cajalad masawiro la yidhahdaa bayntaan cajaladii taabtaa waxaan dhahaa markaan sariirta seexanaya inta dhigtay baan habagashada Allah way jecel yahay masawiro shilimadaydi buu cunayaa timena wuu hayaa been buuna iga gadayaa hadduu doonana wuu ijiid gareeyaa wuxuu doonu shukaansadaa so waxaan kuu sheegayaa baalaha la iga soo rifa gabdho badan oo baalaha laga rifayna waa jiraan kuwa badan oo hadda u heegan in baalaha laga soo rifana waa jiraan social media aan idinka sheekaynayaa guurdoonka kuwa waayahan kusoo qora maaragta nin Africa jooga ama meelahaas ka nin horta ka xataa haddaad state joogtid state kale nin kaa jooga hadduu kuu soo qaadmaayo women ma aha naagaha nimanka ma ahan ninku hadduu kuu soo qaadmaayo statekaas joogtid uu kuugu imaanayo nin walba gurigiisa gaado ku leh hadduu kuugu imaanayo guriga aad magaalada aad lagaa yaqaano oo degantahay hadduu kuugu imaanayo it was fine hadduu state kala jiro no haddaad guursatid aday kaa shidan tahay shalay iga dheh wallaahi billahi watallahi beri baa shallaayaysaa bam hadana been baa bartay baalowna kaa soo rifaya been baan bartay nin Africa jirana maalintuu kugu soo galo ama Europe jira ama meelaha waxbaan bartay hadduu wax bartay wax barati waabaan waxaan iri gabar aan ilma adeernaa waxaan ku iri dadku waxa qofku markuu soo jabo aqli baa laga helaa waxaan ku iri Allah wiil baan shukaansadaayo wuxuu igu yiri ma taqaanaayeeto haddaan ku guursado iskuul baan inta isku tuuro baan wax baranaya markaasaan ku caawinaya markaasaas igu yiri baa iri hadda been ma idiin sheegay ana igu dhacda qof kale waxa sheeko ku dhacday maahan markaas waxay igu tiri oo inta wax baranayo yaa waa hore adigu wax soo baratay ma adigu wax baratay bayt inta asoo wax baranayo sabaa fariista meel ay billaah tallaay waa runteed haya gabadhaas adeerkay baa dhalay ilaahay khayr siiye wallaahi oo billaah oo tallaay waxaan iri waa runteed maada iskuulka isku tuurti adigu wax barati inta asoo wax baranayo istibirka xunkaayo fatra jir racaale bariba sidii kii kale oo masawirada kuu soo dirayay kaa tagayay hadda waana masawirada la ii soo diray ka bacdi weeye
saasa maalin gabdhaha baallaha looga rifaa baby haddaan ku imaado digrii baan haystaayo hindiyaan jaamacad kaga soo baxo turki baan kaga soo baxayo soomaaliyaan jaamacad ka dhameeyey oo kenyaan saas ka ahaayo who cares asagaa iskale wuxuu bartay maadaa iskale asagaa iskale wuxuu bartay adiga maa iskale ma iskuulka aadid ESL-ka wallaahi bilaahi tallaahi gabdha ESL-adaan dhigan jiraa madaxa karunta idiin sheego waxba yuu ninkuugu sheekaynin halkaas iigu imow midka tagsiilaha ama maskiinka ee dawdarka ee suuqa taagan 24ka iyo karameel iyo taagan ee loserka ah baa wuxuu kaaga fiican yahay kan PhD gaayo jooga saakar noloshu ba yaqaanaay kan ma u jeedaa boorka ka jaf haddaad rabtid laakiin mid kugu soo gala oo biyo kaaga soo tallaaba yaa hadhowna kuu qaba inaad jiib tahay waxba inaad ahayn buu kuu qabaa because time baa gelin jirta adoo ka qaalisan adoo ka expensivesan adoo ka shaqo badan adoo ka caqli badan adoo ka sabur badan adoo buu wuxuu isaa kaa dhigayaa markuu yimaado kii shalay aan keenaya ma tiide I was remember 2001kii I was remember dhagihiina fura intaan ka tegay Minnesota baan waxaan aaday Ethiopia Addis Ababaan tegay markaasaan waxaan damcay ilmahayga email baan wada lahayn inaan kula soo xiriiro saan waxaan tegay meel u furan public ah oo Ethiopia inay u furnayd aan jecelahay markaas Addis Ababa Soomaali badan wax kuma lahayn 2001kii way ku lahaayeen laakiin meelo kule isgaarsiini ma lahayn baan u malaynayaa baan tegay markaasaan waxaan ku yiri ciyaalkan email u diraya email se maxaa waay waa kana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi asagaa iiga markhaati ah saxaar naagad wey sama naagtu hadday cid wax barto iyo hadday cid wax siiso midna ma samrayaanu kale waa taagnaha weligay waa ka sheekaynaya email baan inta diray baan waxaan ku idba wuxuu yidhi ma warqad Addis Ababa laga qoray baa Maraykan tegaysa saan inta ciyaalkayga wacay oo meeshii ka wacay baa waxaan ku yidhi fur emailka hooyo gabadhayda intaan wacay markaasay emailkii furta markaasaan ma aragta emailan kuu soo diray say tiri haa waa arkaa soo ma aragtaan ninkii aan saas ku iri baa inta Maraykan yimid oo dukaan buuxo halkaana iyo gaari laba ah ii taalay mid u dhiibay furihiisii iyo guri aan lahayo dee 4 qol oo saa aan u sharaxay inta Minnesota joogta iga markhaatiya Hollywood gabar baa inta ii timid asagoo soo socda oo xeeriye ii keentay bay waxay igu tiri naayahay gabar reer waqooyigu hadalada way helhelaan gabar magaaladan joogto oo canab la dhaho naayahay naa malyuunay naa waabad ka waashay tiri xataa geedii cagaha lagu dhaqaayay yaa iyo kursi baan saa isoo agdhiga markuu soo daaray inaan inta cagaha u geliyo koronto ku jirto oo remote leh inuu cagaha inta gashado ay u masaajayso cagaha u dhiga koobkii shaaha lagu cabaayay iyo geedii yareeda sokorta lagu sheegay koobka koronto yar buu salka loo saaraa bakeerigiina asagoo cad busaa u kor saaran yahay markuu tooso siduu inta batanka u taabto biyihiina iyagoo dhalo ku jiray u yaalaan intuu ku shubto inuu kululaysto baan u diyaariyey xageebu noloshaa ku yaqaan markaasuu inta laba beri joogay buu intii naag magaalada Minneapolis joogtay intoodii badnayd ee wada gooniya shaar buu u bixiyey markii dambe oo xeeradii caanaha ahayd iska daadiyey oo iska shubay gabar walbana saasaa loo galaa gabdhaho waxaan idiin sheegayaa anigu jabkii aan soo maray baan horta idinla sheergareeyaa laakiin naaguhu aysan ku dhicin waxaa la yidhi dumarku waxay ka sheekeeyaan baraarahooda ragguna waxay dhahaan waxaan ka sheekaynaa ba'ayaga wallaahi xataa raggu sidaan ba'ayga oga sheekeeya inaan xataa nin ragga ba'iisa oga sheekayn karinin baraara aan ka sheekeeya iska daayay baraaraha waxaa la dhahaa fiicnaantaada dadkan suuqa Soomaaliga si fiican u aqoon baraaraha waxaa la dhahaa fiicnaanta dumarku waxaa la intooda fiican bay ka sheekeeyaan saanan ahaan jiray oo fiican bay sheegaan laakiin intooda xun ay ahaan jireen ma sheegaan bay rag u dhahaan ragguna waxay dhahaan anagu dhibkayagii baan sheegnaa aan soo marnay hadda rag iyo dumarba anaa guniga caar bixiyey kulligood waxayna sheegi karin ba anigu sheegaa laakiin waxaan idiin sheegayaa nin dalkan ka maqan iska ilaaliya midda kale waxaad barataan haddii ninka uu ku guursado waddankan aad keentid 3 sano ilaa uu ka gaarayo 60 sanka uu gaarayo haddii uu eedadaro keeno Afrika lagu celinayaa anaa kuu haya lawyerkaad la aadi lahayd la minno soo waxaan idiin sheegayaa baallaha ka rifa soo waxaa baallaha looga rifayaa gabar maskiinada oo walaashiisa
oo ina adeertiisa oo hooyadiisa oo kale ah oo wax walba buu inta jacayl ku abuuro oo wadanka keento oo time geliso oo u naxdo oo lugooyo oo ilmo awal haysataa laga yaabaa ama nolosheeda iyo lifekeeda hadda oo jacayl beena masawiro u soo sawiro buu wuxuu samaynayaa inuu baalaha ka rifo markaasuu brain damage ku dhigaya markaasuu stress ku ridaya waa in loo celiyaa meeshii uu ka yimid weliba waxay sameeyaan Canada galaane report garay xataa waxaa report garaynaysaa inuu Canada u socdo waa report garaynaysaa meel u aadi kara mar borka laga soo celinaya xataa Canada hadduu tago dib baa loo soo celinaya runtaan kuu sheegayaa nimankan beenta iyo dulmiga gabdhaha ay ku hayaan inuu wadankii baan joogaa inaan soo gala inuu kugu soo galo no inuu idinku soo galo no ninkii daacada oo fiican we will see waxaa jira haddaadan shaqaynaynin xataa oo uu shaqeeyo guri joog baan asagaan u shaqaynayay inta saacaad rabtid baa lagu charge garaynaya mushaar baad ku leedahay a lot of think oo woman ku leeyihiin baa jira oo wadankan on gabdhaha Soomaalida ogeyn gabdhaha Soomaalida ay ogeyn anaa shalay soo jabay gabdhaha maalin walba la jabiyo oo isoo waca oo ila hadla oo aan arkay dhibaatada lagu hayaan aad baan uga xumaadaa nimanka gabdhaha yararka inta baalaha ka rifa hadana dhahanaya faranka ahayana ayagaan ka rifaynaayo let me know lawyer xiniyaha ka saaraya ana idii haya soo waxa idin sheegaya gabdhaha Soomaaliyeed dayaca ka daaya nimanka Soomaaliyeed hadaynaan dayaca ka daynin been ma idin sheegayno hadaynaan gabdhaha ka xishoonin ma la idinka xishoonayo waxaad ka dhigateen gabdhaha Soomaalida laami baad ka dhigateen waad caydaan waad bahdishaan waad ku dhaga hadashaan shilimada markaad u baahatiin waad ka qaadataan oo markaad sadaqooyinka aruurinaysaan ba sadaqadooda u baahantihiin gabdhaha caawiya gabdhaha amaana gabdhaha moralka u dhisa gabdhaha laba magac oo fiican u bixiya gabdhaha u naxa gabdhaha soo dhaweeya hadii aad diidaan soo ma ahan gabdhaha sharciga wadanka idinku dhaqayaan been ma idin sheegayno runtaana idin sheegaya ma waan idin diidayaan soo waxa idin sheegaya gabdhaha Soomaalida oo wada anigoo intaas jirna saas ma sha Allah u qurux badan qasa arkaysa gabar yar oo 20 iyo dhowr jir ama 30 jir oo haar yeelatay markaas uu leeyahay naagii kanka ah marka uriya waxa ka khaldan Somali man stop drama stop gare Somali man gabdhaha Soomaaliyeed oo beautiful ka oo hard worker ka ya dhibaatada aad ku haysaan stop intaas rabaa inaan idinka tago waa idin salaamaya anigu reer dhisan oo dhaqmaaya ma isku dirayo laakiin gabar maskiina oo la duminayo oo lagu ciyaarayo oo la bahdilayo oo masawir baa laga hayaa leeyahay oo la caynayo oo wax walba lagu samaynayo ya gabdhahaasaan ka hadlaaya reer islaam oo anigu meel deganow ma idinka hadlaayo idinka waxaad isku qabtaan habi hadaad ku tiin ma sha Allah laakiin waxaan diidayaa gabdhaha la bahdilayo naagti dharigeedu buuxda af area la soo bixin mid waxa jirta adoo kala aadan kana fiicnayn ma taqaanay la dulma ayaa jirta taasaan u hadlaaya soo waxa idin leeyahay Soomaalida kala Soomaaliyay indhaha la furo bilig wiil walbowna walaasha ninka guursanaya wuxuu ku sameeyay fiir gabar walbayna la tasho reerkiina gabdhaha aan reerahooda la tashan oo lagu diraayo leeyahay inay reerkiina lama huraan ku waa cawska jiilaal hooyada iyo aabaha baa lama huraan ku ah dib kasta soo martay ayagaad kula soo noqonaysaa ninkan laba bari buu ka raxraxseenaya baaluhuna bari ka rafaya gabar walbaay reerkiinu ninkay ku dhahan ka joog ninkay ku dhahan ka joog walaalka haduu ka joog dhaho ka joog hadawna ka joogto waa diidaa hadawna iga celida mutaqaana asna uu ka diidaa hadii walaasha ka joog aad ku tiraadinin oo ay ka joogo weydo oo ay ku dhacdo ya ha ku canaadine ka celi uhili soo waxa weeyaan waa qadar hadaad ka joog tiraadid na adigana hadii ka joog lagu yiraahdo ka joog walaalkeedow ama aabaheedowna hadaad ka joog tiraadid oo ay ka joogtii diido ya marka ay soo jabto haday kugu soo oydo ha ku xumaynin ka joog baan shala ku iri ha ku xumaynin ee gacan qabo caawi oo uga hiili waxba loo sheegay hal dhag bay wax ka aragnaa geedkan nal buu leeyahay nalkaas markuu daarto erbarku hal nal buu leeyahay nalka markuu daaro cidda uu ku daaro kama damo kaasa ku daarano kaasu ku daarmaya kaaga dhan waa dalkaaga dhan waa dansan yahay kaasay aragtaa marka kaasu ka soo damo adiga nalka kugu daarato adigu nalka ha ku xumaynin caawi intaas waa iga dardaaran waxaan idin sheegayaa waxaan ka sheekaynayo dhanna waa true
waa true story waa run waa waxa maalin walba gabdhaha ku dhaca waa waxa maalin walba rag u dhigo waa waxa aad ka baqdaan inaad ka hadashaan nimankan wadaad baanay ku haya ma waxa ka sheekeeyaan saw gabdhaha ayaga ruuxooda way ku sameeyaan saw ayagu waa rag salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu